mid ka mid ah bulshooyinka dega gobolada galbeedka Somaliland ayaa maanta halkan ku soo bandhigtay musharaxa golaha wakiilada ku matali doona doorashada soo socota ee Somaliland ka dhacaysa bisha sanaad 2022 musharax Idris Aadan Raage ayaa waxa ay bulshadani ganacsato siyaasiyiin dhaqan dhalinyaro iyo guud ahaanba bulshada afkooga ay ku hadlayeen halkan maanta waxay ku bayaamiyeen inay u gartaan aqoonyahanka xildhibaan musharax Idris Aadan inuu noqdo xildhibaanka golaha wakiilada ee bulshadaasi iyagoo midaynta ay beeshaasi ku midaysan tahay doorashada xildhibaanka ka hadlayana ganacsato odayaal dhalinyaro iyo siyaasiyiinba waxay yiraahdeen waxaan halkan ku cadeynaynaa oon hore mar iyo laba iyo saddex ku cadeynaynaa inuu golaha wakiilada u matalayo beesha Aadan Yoonis xildhibaan Idris Aadan Raage taas oo ay isku raacsan tahay beeshu horeyse iyo dambeysaba loo hayo qoraalkii loogu saxeexay maxaan idhaahdaa xildhibaanka oo lagaga aqbalay beeshiisu kolkii ay soo dhigtay taas ayaan cadeyn u ahay maanta inaan xaq ku adino aan beeshano aan ku barbartaagnaano maxaan idhaahdaa xildhibaanka arrinka loo soo doortay oo golaha wakiilada agaasmay waxaan maanta ku dooranayna ku shaacinayna Idris Aadan Raage oo ah xildhibaanka uga qayb galaya beesha abeelweynta Aadan Yoonis xildhibaanada qaranka uga qayb galayaan halkan ku shaacinayna Idris garbkaygiisa soo taag Idris Aadan Raage waan qaadanay waan ku aqbalay beesha Aadan way ku aqbashay way ku qaadatay waxaana tagaysaa baarlamaanka qaranka hadii alla yiraahdo Somaliland ku soo dhawow beelweynta Aadan inuu u shaqeyso ku soo dhawow halka inaad qaranka u shaqeyso daacada ugu shaqeyso beesha ku soo dhawow beelweynta Aadan wata way ku aqbashay adiguna waa inaad saa ugu shaqeyso Somaliland ha noolaato jibday musharaxan Idris Aadan oo u sharaxan beesha Aadan Yoonis oo soo sharaxay xisbiga Ucud aan doonayna wakiilada Somaliland uga qayb galaya inuu noqdo beesha Aadan Yoonis waxaan u nimiday taasoo ay isku raacsan yihiin beeshu annagoo Aadan Yoonis ahna beelweynta Aadan Yoonis waxaan isla garanay oon go'aaminay oon ku qanacsanahay waxaan markaan guniya baar isla eegnay iskuna raacnay islana go'aaminay kuna qanacsanahay xildhibaanka aan soo dooranay Idris Aadan Raage oo ah nin aqoonyahana nin waxgarada nin dhammaystiran tali iyo arrin iyo aqoonba oon ku aaminay taladayadii haddii aan dhalinyar nahay haddaan odayaal nahay haddaan aaqilan nahay haddaan haweenka iyo cid kasta ay khusayso musharaxa wakiilada Somaliland ayaan u soo dooran beelweynta Aadan Yoonis dhafoorkeega lafdhabartay lameynta xaafadda ulajeedkiisuna uu yahay kulanka ballaaran ee beesha isku timaday in la shaaciyo in Idris Aadan Raage uu yahay xubinta u matalaysa golaha baarlamaanka ama golaha wakiilada ama golaha sharci dejinta nabadda yaqaana beelweynta Aadan Yoonis cid ay dooratay u matalaysa inuu yahay inankaas haddaanu nahay anigoo ku hadlaya afkii ganacsatada haddaanu nahay ganacsi haddaanu nahay odayaal haddaanu nahay waxgarad haddaanu nahay siyaasiyiin dhammaan waxaan isku afkarnay beelweynta Aadan Yoonis inaan maanta sidii noo caada ahaan jirtay awalba ee aan ku soo saarnay kaayagii horeba inaan maantana xoogayaga iyo cududeeda aan saarno xildhibaan Idris Aadan Raage oo u sharaxan golaha wakiilada xisbiga Ucud taasina waxa gorfayn iyo xeerkiiba dib loogu noqday waxay noqotay in Idris Aadan Raage ay beeshoodu maanta yeelato waxaan ugu hambalyeeynaa shaacinta maanta laga shaacinayo xisbiga Ucud ee golaha wakiilada Idris Aadan Raage xildhibaan welcome baa kulahay waan garab taaganay haddaanay dhalinyaro odayaal ganacsato waxaan isku raacnay inaan maanta golaha wakiilada ka shaacino xildhibaan Idris Aadan Raage inuu noo matalo 5 sano soo socda xildhibaanka beelweynta uu matalaya golaha wakiilada Aadan Yoonis sidoo kale Idris Aadan Raage musharaxa ay beeshani maanta halkan ku soo bandhigtay ayaa si weyn uga mahad celiyay
garashada bulshada uu ka soo jeeda ay u garteen kursiga golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland inuu tartamo oo ay ku matalo beeshaasi. mahad ballaaran baan idin celinayaa waxaan idin ballan qaadayaa inaan idigu shaqayn doono si daacadnimo ah isku hayntiina xiriirkiina idiga iyo dawladda iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xiriirintiina wax ka qabashada baahiyihiina iyo gobolka u shaqaynta sharciga Soomaaliland ilaalinta sharciga Soomaaliland ilaalinta xuquuqda gobolka awdal iyo beeshan ka soo jeedo waxaan idiga mahad celinayaa garashada hadii garateen inaan idigu metelo murashaxa aqalka golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland Hori Ahmed Hori TV-ga caalamiga Hon Cable TV magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal.